haddaba maxay tahay sababta damiirkii ka qaaday ummadda ee hooyada kuna dacwoonaysa maqnaanshaha inanteedii ay leedahay dhowr bilood ay bulshadu uga soo horjeedaan maxay tahay sababta loogu afleydgaadeynayo baraha bulshada maxay tahay qabyaaladda heerkaasi gaadhay ee qof ku cabanaya cadaalad inuu helo isla markaana doonaya in laga jidbixiyo maqnaanshaha ubadkii uu dhalay loogu geysanaya jariimada intaasi leeg ee baraha bulshada wax looga yeelaya salaamullaahi calaykum halkani waa aqoonsi TV barkulanka bulshada Soomaaliyeed maxay tahay sababta ay bulshada Soomaaliyeed u radinayaan dhawaaqa yacbashada ka soo yeeraysa hooyo qaali Maxamed Guhaad oo ah hooyada dhashay sarkaalad Ikraan Tahliil Warsame sarkaaladaasi oo xubin ka ahayd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka halkan ayaad ku ogaan doontaa inta ka horeysa waxaan ka codsanaynaa inaad qayb ka noqoto kumaanka kun ee saaxiib ee aanu halkan dagal wadaagta ku nahay mahadsanid tani intii ay ka soo wareegtay markii si rasmi ah loo waayay sarkaaladii ka tirsanayd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo lagu magacaabayay Ikraan Tahliil Warsame 26 bishii 6 2021 waxaa lagu eedeynayay hay'adda NISA oo ay ka tirsanayd waxaana hooyo qaali Maxamed Guhaad oo hooyada dhashay sarkaalad Ikraan Tahliil Warsame ay marar badan la hadashay warbaahinta noocyadeeda kala duwan iyadoo oo dalbanaysa in inanteedii ay cadaalad hesho isla markaana ay xukuumadda Soomaaliya xaqiijiso nolol iyo geeri halkii ay ku dambeysay sarkaalad Ikraan intaasi markii laga soo wareegay waxaa dhacay isqabqabsi u dhaxeeya madaxda sare ee xukuumadda Soomaaliya waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya iyo Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isqabqabsigoodaasi iyo radinta waraaqaha dikrooyinka ee midba uu kan kale ku radinayo ama ku burinayo wareegtada ka soo baxda xafiiskaasi ayaa waxa bulshada kala taageersan ay ilaaween xaqii hooyo qaali Maxamed Guhaad ay lahayd waxaan arkaysaa baraha bulshada oo dad kala duwan ay siyaabo kala duwan maamadaasi uga falcelinayaan isla markaana waxa ay qaarkood tuhumba gelinayaan inay qayb ka tahay maqnaanshaha sarkaalad Ikraan Tahliil Warsame qaarkood ayaa soo jeedinaya in maamadu ay wax ka og tahay in maamadu ay la safan tahay Maxamed Xuseen Roble iyo in maamadu ay qabyaaladahan uga soo horjeedo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya haddaba maxay tahay sababta damiirkii ka qaaday ummadda ee hooyada kuna dacwoonaysa maqnaanshaha inanteedii ay leedahay dhowr bilood ay bulshadu uga soo horjeedaan maxay tahay sababta loogu afleydgaadeynayo baraha bulshada maxay tahay qabyaaladda heerkaasi gaadhay ee qof ku cabanaya cadaalad inuu helo isla markaana doonaya in laga jidbixiyo maqnaanshaha ubadkii uu dhalay loogu geysanaya jariimada intaasi leeg ee baraha bulshada wax looga yeelaya goorma ayay Soomaalidu ka weynaanaysaa qabyaaladda adiga sidee bay kula tahay maxaad se u aragtaa afkaarta ay dadku ka dhiibanayaan maqnaanshaha Ikraan Tahliil Warsame haddaba tan iyo 1991 markii ay burburtay dawladdii dhexe ee militarigu uu hogaaminayay Jaale Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistee dalku waxa uu galay dagaal ehliya ama dagaal sokeeye bulshaduna waa istishay ardaana waa isu dishay balse tan waxay kaga duwan tahay bulshadu dulmiga markaasi ilaa haatan la joogo dhinac ay uga soo wada jeeday ardaa kasto uu yahay laakiin maanta waxa la arkayaa 2021 bulshadii Soomaaliyeed ee nadiifta ka ahayd in dulmiga ay taageeraan cadaaladana garabka siin jiray in maanta ay qabyaalad darteed u dulminayaan hooyo Soomaaliyeed oo ku doodaysa inay ilmaheedii cadaalad u hesho isla markaana doonaysa in maxkamadda la soo hordaas la istaajiyo cid kasto ay ku tuunto maqnaanshaha inantii ay dhashay waxaynu leenahay dib ha looga soo laabto halka la aaday Mustafa Xaaji Aadan Haaruun aqoonsi TV kulanti dambe fi amaan Allah